بسم الله الرحمن الرحيم وسلامة بالشوين تصومال ميل والبجوكتان ما أنت واحد دون يسوق عطو موضوع كصابصن حضارة أما حضارة الإسلام وصلوا ورا حضارة الإسلام كم مرة فيديو جهرو وسوق عضني إما خوي رفع فاهين كله وكصابصن حضارة الإسلام حضارة إما كتيرتا بقول كسنة يقدم بيسي وحويان حضارة تكنولوجيا وحضارة غير البيت كان intaana bilaabin casharka su'aalo isiir weydiiyay waxa weeyaan xadaarada maanta jirta ee galbeedka ee teknolojiyadu ku jirto dadku habi ma ku yihiin oo ma farxaan bay ku yihiin iyadoo jirto horumarin xagga teknolojiyada shaqadii ma yaraatay dadkii shaqalaanta ma yaraadeen xadaarada ma jirta ee galbeedka فقري مو يراضي وقاعد dadka gaajoonaya ma yaraadeen xadaarada maanta jirta dadku marka seexanayaan ma iyadoo degan bay hurdo seexnaan habeenkii xadaarada maanta jirta galbeedka ama xadaarada teknolojiyada ku saabsan maanta dadkii ma xaq caafimaadka ma ka tagay hamiga iyo qamka iyo yabaalka iyo depressionka dadku ma ka tagay حضارة بانت جرتا الجربات أما حضارة التكنولوجيا دو هل تجارضي ما يرادن أنت هذا السؤال بس ودي واحد كلا جرتا تكنولوجيا دو مركي هرم مرتبة واحد بطبعنا عذراء للصعود التكنولوجيا ذن أما تطور كان كصعود قابب حوار لو تقدر إن ضدك نفسية دو تعبان هاتو جركو تعبان هذا وحنا مركب بلا ما تخاطر تلفتو دو hawshoodu badato oo xayiraadoodu badato waayo si uu soo saaraan cudurrada cusub ee ugu soo biiray sidii loo shaafin lahaa mar walba oo maadaduna badato ama economiga lacagtu marka dadku u badato dadku way daalaan gudaha ka daalaan sababtu waa maxay qofku lacag buu haystaa noloshiisu waa fiican tahay haddana gudihii waa waxba ka jira oo nafsiyadiisu ma fiicna ma degana maxaa jira sababtu waa maxay sababahaas oo dhan islaamku wuu hayay xilkiisa way jirtay qaar culimada kamida oo mustashriqiinta qarbiinta oo dhigtay labada xadaarado xadaarada qarbiga xadaarada reer galbeedka iyo xadaarada islaamka labadaba isku barbardhigay wuxuu yiri xadaarada qarbiga waxyaalo badan ka maqan oo kamida laba cunsurna waxay cunsurka sharafta iyo cunsurka jamaalka quruxda marka ragabadku waxay ku leeyahay labada sharafta garanay laakiin quruxdu maanta waxa ay tahay xadaarada maanta jirtaaba oo quruxba taaraha dhaadheer guryaha dharka labis maxaan ku lahaay baabuurta gaadiidka isbedel weyn baa ku dhacay waa qurux maxaa marka taayirsiina tiraahdo qurux sharaf iyo qurux baa ka maqan ninka marka wuxuu ku soo celiyay وحري وحكم مقان أنا وحن وجهي وحى ويان قيمها جمال كلية وقيمها قفك قديس نفتي صروحها وحضارتها إمك ترتام حضارتها جبتكو وحكو صار يسنت روح الدبدة مظهر كدبدة لكن تطكي قديه بكدالنين وقديه بكتعبانين وعذر باتشلا كل حجر بنان قديس وحنا كمقان قروح فطرة إلهي وفطري فطرة الله التي فطر الناس عليها وفطرة إلهي كأبو ربنا آنك مركز عربة علماء وحي راهن سطح مقياس بتشرا حضارة والباء إني سطح لها توينا كمقنان وحيان جانب كأخلاق ذا يجانب كروح ذا يجانب المادي سطح جانب أخلاق ذا يجانب الروح يقف قديس كم أحبي هذا يجانب المادة مادتنا العكتة حتى نصدح جرين بدن حضارته مبوحدو وحلا قدمنا ان حضارة كلية بني آدم كاحترامتي اما بني آدم اهتمام وين سيسي وحين حضارة الإسلام جرتي واحد جرى كلا قلنا يمكن حضارة الإسلام وحيانا كو فعل محاهد حضارة الإسلام واحد حضارة كلية إلهي وحيدي توحيد الله في الأرض حضارتي هو روحي حضارة عبدة فرعون رهانا أنا ربكم
يونان هجريجو طيح يو أتعد عابدة كوي كسو هروينا كسي درن إن وصلا لكن حضارة كده إلهي وحيدي وحضارة إسلامك اللبا حضارة كده يكون يصدح بقول صنو دبتشوجا جرتي وحويان حضارة إسلامك كهر ميجرتين حضارة كبلتا لو صنو لو بقول صنو أما صدح بقول صنو marka kun iyo saddex boqol sano isdaba jooga oo bislaatay oo dadka gacanta qabatay oo faafisay cadaaladda raxmadda rafada cadaalad iyo naxariis iyo xulba waxa darada islaamka haddaba hablaha iyo dhalinyarta waxaan doonayaa ina marka maqashaan fiidooga ina ku faantaan xadaarada islaamka ama ku faantaan dad muslimiin saddex xadaarada islaamku waxa meel lahaan jirin wax loo bixiyo tafriiq cunsuriya yani cunsurnimo in dadka loo dhaqanto nabiga calayhi salaam mabda uu dhigay ummadda islaamka oo dhib ku shaqayn jirtay mabda'una wuxuu ahaa nabiga markuu yiri xadiis shariifka laa fadl carabiyin cala cajami walaa cala abyad cala aswad ilaa bitaqwa firquma dhexeeyo carabi ama cajami ama qof cad iyo qof madow ilaa taqwa iminka xadaarada iminka jirta gabeedkuna weli waxay ku jirta la dagaalanka cunsuriyadda ama kahortagdiisii taariikhda islaamka marka u noqono ninka xukumi jiray masar kaafuur rashidi waxaa nin xabashi ah qarni raabic hijri buu ahaa wuxuu xukumay ilaa 23 sano isdaba jooga waxaa ahaa nin xabashi ah oo madow ninka xukumi jiray masar taariikhda muslimiinta haddaan u noqono dadkii culamadii diinta سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلالية قري وحايان إمام البخاري إمام مسلم الترمذي والنسائي أفر تاسوا وحايان تض أنا هن عربة معناها وحايان تذكروا كسوتشي ذا الركلة سنة الركلة إمكا أوزبكستان يو تركمستان يو ميلها يو تركيا وحيك الشيء يو فارس به إن متشرو إسلامك وحلو بحيو هبل وحايس باسبور عص هبل وحايس باسبور بلوغا هبل وحايس باسبور عط وحاس مثلا مسلم كو حاطط كليات وحيالها افراد وحيالها حضاره الاسلام كو عنيد وحيد dadka in la tacaamusho dadka adyaanta kale sida ugu fiican oo xuquuqdooda siiso iyo inay dulmi ku sameeyaan ma jirto حضارتها عالم كاحترامتي أصحاب الديانات الأخرى سل الإسلام كون احترام الديانات كله أهل الكتاب كا وحسوق هذا كرا مقولة أوري عمر الخطاب متى استعبدتم الناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا قرما تدك قميستين أيضا هو يدود رشا أيضا حرة كلمة ده أنا أرنو وحي كوسو بحدثت عمر بن عاص أو مصر حكومة شري inankiisu tartan la galay dadka xagga deganaa badankoodu waxay qibtiyintuna waa kristan tartanka waxa ku badiyay markaa nin qibtiya wuxuu ka badiyay Umar al-Aas inankiisa geelu tartan ku galay markaasuu jaayada ku dhuftay Umar al-Aas inankiisu arintii waxay gaadhay Umar al-Khattab baa u yeeray Umar al-Aas inankiisa iyo ninkii qibtiga wuxuu ku riday ka argooso Umar al-Aas inankiisa oo jaayada ku dhufo markuu ku dhuftay buu ku aabihina raaci markaasuu ku yiri qibtiguna waxay ninkii sanabaha u xirimay mar ma dilayo waayo ninkii dilay waxa inankiisa markaasuu Umar Khattab saanta uu eegay Umar al-Aas buu ku yiri mata sa'batum an-nas wa laqad waladtum ummahatum ahrara kelmadda ma taala waxay kelmadda isticmaasho imika la baro dadka United Nations ku isticmaasho waxaan ka muuqata in miithaaqa ama قانونك متحدة United Nations متحدة دكتي عالم كله دكتي إنه أساس كده مركز على كلمة عمر الخطاب مركز واحد وقالتان إنه دينتين وقني كتاي وحيالات بدن وبشركة كو احترامته كو قدرته أصحاب ديانات دينها كنا قلت شرع عمر الخطاب واحد وقال يوح لكرمي نين يهودية دول سنة الدين الجودة مركز كل محاكو جين دول ستين وحلو جزيدة ما بحين كرو جزيدة واحد لعق بحيان بدنا أصحاب الكتاب وهتعيد كلا كوسو دوشو مسلم كوسو لوجد دفاع وأسكا إسكات كان مع شرطة أخرى نينكي مركون تاكل عمر الخطاب كل ما أدقو
dhalinyaro xoog leh baa kaa qaadi jirnay adoo weynna waa ku dayacayna wuxuu ku yidhi jizyada maalintaa laga bilaabay ma bixin kartid waxaan uu qoray min beetbaan muslimiinta lacagtooda inuu bil walba lacag la siiya joogtaa waxaan uu qoray arji dadka oo dhan xukuma islaamku dhulku xukumi jiray inay siiyaan dadka asxaabulka kitaab inay siiyaan dadka diyaanada asxaabul kitaab yahuudda iyo kiristanka in la siiyo lacag dadkooda waaweyn lacag joogtaa in la siiyo iyo inaan cashuur laga qaadin marka waxay ogaataan diinteenu waxyaalaha qani ku tahay waxyaalaha ay ku ficdeen diinteenu qar waxaad in ahayd economy xagga economiga aad bay u weyneed iqtisaadka islaamku 100 sano ka hor nabiga calayshi salaatu wasalaam kadib markuu geeriyooday Umar ibn Abdulaziz markuu xukumi jiray zakadii baa u timid ama muslimiinta zakadoodii markaasuu siiyay bixi fuqarada ku bixi shaqaalii buu diray wuxuu ku fuqarada ku bixiya fuqarada dhan baa la siiyay waa loo soo noqday shaqaalii baa ku riniyo bixinay lacagtii oo dhan laakiin waxyaalo badan baa soo noqday lacagtii wax badan baa yaala markaasuu yiri waxaa sameysaan dadkaanan guursan ee dhalinyarada muslimka si guurka ku caawiya way tageen way u soo noqdeen waxay ku leeyeen dadkii muslimka ahaa ee dhalinyarada ahaa ee guurtoonka way guursadeen lacagtiina waxba ka soo haray markaasuu ciidanka ku fangareeya markaasay tageen ku soo noqdeen ku ciidankiina waa fangareey lacag ba soo hadhay markaasuu ku dadka deen lagu leeyahay muslimka diinta ka bixiya markaasay tageen deenkii ka bixiya markaasay ku soo laabteen deenkii ka wala bixinay markaasay haddana mar labaad ururi ka bixiya yahuudda iyo nasaaraha deen qof lagu leeyahay lacagta uga bixiya markaasay tageen haddana ku soo noqdeen markaasay ku deenkii bixinay markaasay yahuudda iyo nasaarada haddana lacagtii wali taala markaasuu ku raadaba qamadi ku soo iibiya inta ku soo iibisaan lacagta qamadi buuraha dushooda ku daadiya shimbiraha hatta shimbiruha cunaan iminka maantana qamadida dowladda baa jira qamadidu maaragtay uu ka bato beeritaan marka baaraan saan sicirku u jabin wax lagu daadiya badda annaguna goorta islaamku jiray Umar ibn Abdulaziz wuxuu xukumi jiray oo ahaa amir muuminiin shimbirihii baa ka dhigay qamadida marka xalaarda islaamku waxyaalaha ku wacneed iyo waxyaalo badan baa marka waxa doonayaan dhalinyarada muslimka inay gartaan oo diintooda ku faaraan